Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عبد النور الشيخ محمد. وحان سوق الدنيا إن شاء الله. بيانكي كسب بحي كلنكي وتشيلها وأي سياسيين يوحجرت يغنيهن علماء الدين dad badan oo ka walwalsan xaaladda Soomaaliya ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi iyo talooyin ay u soo jeedinayaan xukuumadda iyo ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaan isleenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wada tashi laga sameeyo, talooyin afkaar la isugu weydaarsado, talooyin dhaxalgalan meesha laga sheego. Marka runtii waxaan isleeyahay axsaabta siyaasiyiinta waxgaradka maanta isugu yimid كل وضوح قبل درين إن ذلك البدبادية إن حكومة تلوين لسيو ومدة الصومالية لو وعي قليو ولو موجيو وذا هذا القي وذا تشي وأفكارتك لدوان إن مهم وتحي جد سعة ومدة الصومالية نرنتي نوار نسيب درو إن لو كل بواي مقالة مقدشو أما علس وكيم سياسات إن كل ما نوع عنه كلا لوقف تدلك جودي هيسا هساهاتي هدي حتى لو وقفت دالك دبدي سعيب ملها والدولة الشيشية إيو أجانب يعد كلا رتا شقولة ملها بروفيسور غاندي ورين عيقة فردية إيو أغوينهن كلا يحلبان كلا سوماليات أيارمهان كسو شقي وجيددن وح كلا ما هين إن تلوين إيو أفكار إيو هذا رتا لغا سميو marka insha Allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaan magaalada Muqdisho in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto. axsaabta ka soo qayb galay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga Daldis, xisbiga Wadajir, xisbiga Nabadda, xisbiga Elays, xisbiga Mid Qaran, xisbiga Isbahaysiga iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar la mid ah. bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 Abriil 2019 waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, xildhibaano, siyaasiyiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo dhibsatay cadaaweysatay in xogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama axsaabta rasmiga ah jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan. culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markay halkan isku arkeen ay yiraahdeen aan ka faa'iideysano fursadan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno. sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay carta magaalada carta ee dalka Djibouti sanadkii 2000. ka soo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha ka sii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda: amniga,
kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada muqdisho waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wada galeen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golihii amniga qaranka waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyadoo xoogga isugu keentay caburinta cadaadinta iyo baacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa beddelkeedii si ula kac ah xukuumaddu qaaday tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka sida xirista waddooyinka xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada raafka joogtada ah oo ay dhalinyaradu kula kacdo iyo caburinta xoogsatada iyo danyarta Soomaaliyeed tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi xoogeystaan fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan labo tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka dejinta iyo hay-adda garsoorka ay galeen kulligooda gacanta dad tira yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu tagrifala ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda iyo wadada mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka talo la'aanta siyaasadeed daciifinta hay-adaha dastuuriga ah daahfurnaan la'aanta geedi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geedi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilowday magaalada Carta sanadkii 2000 jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo fadhida iyadoo fudayd iyo ka fiirsi la'aan siyaasadeed ku maaraysa siyaasadda dalka halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galaayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed wada hadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho kasoo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheena reer Somaliland waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka Muqdisho iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee Muqdisho xuquuqda muwaadinka waxay kasoo qaybgalayaashu ka walwalsan yihiin caburinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda hoggaanka dowladdu waxay iska indhatireen dhibaatooyinka shacabka Muqdisho oo u baahan hiilo dowladeed iyo dareen in dowladooda ay u turayso haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon fowdo horseeda dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi gunaanad waxay kasoo qaybgalayaasha u muuqataa in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyay in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin balse wax loo dhimay
mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii 2 sano ee lasoo dhaafay lasoo maray. sidaa daraaddeed waxay kasoo qaybgalayaashu ku baaqayaan kow in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo, lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogagga siyaasadeed ee dalka ka jira si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka sida xasilinta dalka, dib u eegista dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi. 2 haddii ay madaxda dalku iska dhegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamileyda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh, haddii aan laga dhegaysan talooyinkooda, waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa la isugu yimaado shir qaran bisha Juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ah dalka iyo talooyinkii la soo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay. waxaan ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhaweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kaleba, siyaasiyiintana ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo, talooyin afkaarna la isku weydaarsan karo. 3 beesha caalamka oo baryahan u muuqata inaysan daacad ka ahayn siyaasadda Soomaaliya, waxaan ugu baaqaynaa inay mudnaanta koowaad siiyaan howlaha lafdhabarka u ah nabadeynta iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya, kana waantoobaan inay siyaasadda Soomaaliya soo faragashtaan oo ay arrimaha dalka ay ku yeeshaan raad aanan wanaagsanayn. هذا وبالله توفيق. waxaan is leeyahay bayaankaasu howl adag oo la soo qabtay ayuu ahaa, talooyin aad loo maaragtay lafaguro ayuu ahaa. waxaan rajaynaynaa inay ummadda Soomaaliyeed soo dhaweeyaan oo ay u arkaan talooyinkan kuwa dhaxalgal ah, waxna ku tari kara geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. aan loo arkin kulanka siyaasiyiinta isku dhafan oo Soomaaliya dhan ka kooban oo isu yimid oo dareen ka muujiya xaaladda dalka, inaan loo arko mucaarad kaliya ah ee loo arko kuwa wax lagu saxayo, dalka lagu hagaajinayo, dowladduna ay soo dhaweyso. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdicasiis barrow ka tirsan telefishinka RTN. bayaankan waxaa ku xusnaa inaad walaac ka muujinaysaan heshiisyada dowladda Soomaaliya ay galayso, taasi oo aydan ku xusin heshiisyada la galay kuwa ay yihiin aad walaac ka muujinaysaan. midda kale waxaad sheegteen maqaamka Muqdisho iyo inaad ka hadasheen iyo muddo kororsi. haddii aan su-aaleyga guda galo waxay tahay heshiisyada la galay ee aad walaaca ka muujinaysaan bulshada Soomaaliyeed ee jeceshiin aan la wadaagtaan waa kuwe, haddii aad si gooni u dul istaagtaan. 2 Muqdisho maqaamkaad u raadinaysaan sida gooniga u tilmaamaysaan muxuu yahay? midda kale waxaad sheegteen in doorasho qof iyo codal la qabto iyadoo aan muddo kororsi la samayn. waxaad ka cabsi qabtaan in madaxda maanta joogta ay muddo kororsi samayso? بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شو رسالة أنا سكوت أنا كجوابه. سؤال شو رسالة أنا سكوت أنا كجوابه. ولا وكذا السعودة هشي سدا وحاكمة ده هشي سدا الأحمري دولة الصومالية ده إيو إثيوبيا. وحاول وأنا أوين ولا جش كان هاي مرتي إني فردوين إثيوبيا لسي ولا جش كان إني دولة إثيوبيا سبعين سنة أيضا صدن أو كون أونين أو مارينا أي سبعين سنة بدنا على الرهين سؤالها قاركود السويدين أنا أيتاي إن بدأ سيدا جديد وأيتاي سوماليا وحنا وحبك أوين مركي اللي تجي إريتريا وحيابها الإسكور راعي ودولة إريتريا إثيوبيا الصوماليا إسكور راعين وحاكل يتوه جرتا إن دبيشي هذانا مركي واجه هورس عتي دبيلا ما هنا درين يسعته
oo eritreyaanka ay tageen somaliland oo dowladda jabuuti oo markaa ay moodeysay aragtida hore iyo faceka koowaad inay ahaayeen marginaal ama gees la dhigay in ay soomaaliya kusoo noqotay waxaasoo dhan waxaa weeyaan wax mugdi ku jira oo aanaan ogeyn loona baahan yahay shacabka soomaaliyeed in loo fasiro baarlamaanka iyo xeeldejinta in loo fasiro dadka soomaalidana ay si cad ay u arkaan marka taas waxaa waaye su-aashaada koowaad su-aasha labaad muddo kororsiga waxaa weeyaan dowladdan waxaa lagu doortay oo ay ku timid inay 40 sannadood oo ay xilka hayaan inayna gaadhsiiyaan hal cod iyo hal qof soo ma garan waxaa muuqanaysa in ilaa iyo haddeertaan wax tilaaba oo laga qaaday in ay timaado in hal cod iyo hal qof ay dhacdo dalkii in la xoreeyaa loo baahnaa lama xoreynin cagsi waxaa waaye dhul badan baa laga baxay oo hadda waxaa waaye ay shabaabku ay qabsadeen mugta marka waxaa weeyaan waxaa anaga noo muuqda markaa walaac ah maadaama qorshuhu uu ahaa in marka la nabadeeyo dalka tirakoob la sameeyo tirakoobkaa marka la sameeyo lagu saleeyo kuraasida imaanaysa markaas ayadoo dalku uu amni yahay dadku ay codkooda ay la baxaan marka ma muuqato marka walaac inaanu walaacna taasaa keenaysa soo ma garan ayadaana keenaysa in aanan la dhihin hadhowdii 4 sano waxba waan ku keeni weyno hal qof iyo hal coda laakiin ana loo dheereeyo marka waxaa waaye ballantii ay qaaday dowladdu oo 4 sano ahayd waa inay ka soo baxdo waxaan ka cabsi qabnaa in aanay dhici karin taana waxaa waaye qodobkaaga labaad maqaamka muqdisho wax weyn oo annaga aan keenayna male dastuur kasta iyo axdi kasta oo ilaa carto soo baxay oo kii imbigaati uu ku jiro oo dastuurkan hadda kumeel gaarka uu ku jiro waxaa ku jirta in maqaamka muqdisho laga hadlo marka kuwii kumeel gaarka ahaa waa ka hadli waayeen soo garan kuwaan oo ayaguna ka baxay kumeel gaarkii waxaad moodaa mar alaaliya mar kasta oo laga hadlo maqaamka muqdisho waxa ay noqon doonto yaa oo dadku ayagoo heshiis ku ah ay noqon doonto maqaamka muqdisho inaad moodo in laga cararahayo mugta oo aan la ogolayn ama haddii kaleeto ayna ahayn haddii laga hadlo caburis u jiro marka su-aashaada saddexaadna intaasaan ugu media aan Soomaali ahayn haddii English ay ku heli karaan بسم الله الرحمن الرحيم walaalkay si fiican uga jawaabay magacaygu waa xildhibaan cabdiqaadir cusub lacali qadiinta ku saabsan waxaan rabaa si gaar uga jawaabo maqaamka muqdisho ka hadalnay sidoo walaalkaas sheegay maqaamka muqdisho dastuurka wax ku qoran yahay qodobkiisa 9aad in lagu soo saari doono sharci baarlamaanka lagu soo saari doono laguna doodi doono dib u heshiinta macnaa dib u heshiinta dastuurkan lagu soo saari doono muqdisho si gaar ah waxay noogu haysaa walaac zaa'id ah waxaa noo soo muuqato xukuumadda maanta jirto corruptionka ugu weyn meesha ay ku isticmaalaysa inay tahay inkan kaga yimaado gobolka banaadir waxa aan codsanaynaa haddii dib u heshiista iyo maqaamka muqdisho inta laga gaarayo waa inuu dadka magaalada muqdisho degan dimuqraadiyaddu ay gaartaa sida dadka jubbaland ay u dooranayaan madaxweynahooda oo ay hirshabelle u dooranayaan oo galmudug ay u dooranayaan waxaan rabnaa maamulka muqdisho maamulayo in shacabka dhex degan oo canshuurta looga qaadayo ay u helaan maamul ayagu ay doortaan inta laga gaarayo caasimadda iyo maqaamka xusitaankiisa waxaa dhacay waxaa muuqato in dadweynihii magaalada muqdisho maalmalba jadiidka laga xiraayo maalmalba bajaajyadii la dilaayo caburiska xooggiisa maanta laga warramaayo oo dhan waxa uu ku socdaa dadka magaalada muqdisho degan waxaan u baahannahay inay helaan maamul ay la xisaabtami karaan baahidooda dhibaatooda ay u sheegan karaan laguma maamuli karo magaalada muqdisho qof lasoo magacaabay oo ka cabsanaya biri in la bedelo waa inay heshaa dimuqratisation oo dadka magaalada muqdisho inta maqaamka iyo dastuurka dib u heshiista la gaaray xataa waa in la helaa maamul dadka muqdisho ay leeyihiin ayago ay soo doortaan oo aynan dhicin 15% canshuurta dakhliga dowladda soo gashay gobolka banaadir la siinaayo unaccountable waayo sidaad ogtihiin guddiga maaliyadda ee baarlamaanka markii loo soo gudbiyay hanti dhowr ku soo gudbiyey 6 bilo ugu horreysay 2018 lacagta ku maqnad oo unaccountable oo meel lagu baxshay aan la aqoonin waxay gaaraysaa $16 milyan 6 bilo kalena intoo kale laga yaabo inay tahay
ilaa ay hadda qof la xisaabtamaayo hay-ad la xisaabtamayso shacab la xisaabtamaayo lama haayo meesha dhibaatadu lagu haayo shacabka soomaaliyeed hadday dowlad dhexe tahay haddii wax kasta ay tahay waxay tahay maamulkii banaadir in loo isticmaalayo in lagu gamaado shacabka soomaaliyeed taas ayay tahay konseynka ugu weyn oo aan ka qabno oo loo baahan yahay in la helo demoqratization maamul dadku ay soo doortaan gobolka banaadir u noqon haddii ilahay rawaana mahadsantahay waa mahadsantahay xildhibaano labada aqal ee dowladda ii muuqda siyaasiyiin xilal soo qabtaan sidoo kale fadhiya so lagama qurux badna timaadaan inaad baaq ka soo saartaan adinkoo heli kara magaaladii muqdisho ee soomaaliya iyo dadka aad matalayseen inaad ka hadashaan maanta waxaad soo jeedisaan aad ka jeedisaan waa qodob midda labaad waxaa ka doodeen ood ka hadasheen ka mid ahaa hadalkiina maqaamka muqdisho ma ka hadasheen weligin baarlamaanka adinkoo jooga maqaamka muqdisho khaasatan xildhibaanada matalaya deegaankaas maxaa idiin diiday muqdisho marka baarlamaanku isku yimaado inaad mowqifkiina ka caddaysaan aragtida aad ka qabtaan inkastoo caasimad ay tahay soose sharaf dhacdinkuma noqonaysa maanta nairobi inaad baaqinta kasoo jeedisaan dowladdii aad ka tirsaneydeen inta ka dhalishaan adinkoo heli kara magaalada muqdisho inaad ka hadashaan بسم الله الرحمن الرحيم قضية مقامك سida aan hore u tilmaannay in badanna waa ka hadalnay baarlamaankan waxa uu sugayay in loo soo gudbiyo cutubiyada ugu horreeyay dastuurka oo guddiga dib u eegista dastuurka 2 sano ka hor baarlamaankii 9aad ay soo diyaariyeen oo kuwa dambana ay soo diyaariyeen ilaa hadda looma keenin baarlamaanka Soomaaliya loomana keenin inay ka doodaan laakiin annaga waa ka hadalnay in badan welina waa ka hadlaynaa haddii ilaa yaraado maqaamka muqdisho dastuurka wuxuu ku xiray in dib u eegista dastuurka markii lasoo gudbiyey meesha qodobkaas looga hadlo ilaa iyo haddana intaasaan sugayna wax hadda aan ka hadlayna waxay tahay in dadku ay helaan maamul ayagu ay soo doortaan ilaa laga gaaray dib u eegistaas qodob kaloo aad tilmaantay oo ku saabsan maxaa halkan uga hadlaysaan oo uga soo jeedinaysaan waxaan u maleynayaa waa soo daahday markii la akrinayay bayaanka walaalkeen muqadamadii ku tilmaamay dadku meeshaan isugu yimid axsaab isugu yimid wax hore loogu ballamana ma ahayn markii la isku yimidaa lees warsaday duruufaha ugu badan oo dadku inay halkan isku warsadaan oo ay gudaha isku warsan waayaan horaa loo tilmaamay waa caburin iyo hor istaagid iyo diidmo ay xukuumadda maanta jirta u diidan tahay dadka siyaasiyiinta ah ka aragtida duwan inay si xor ah ugu shiraan waxaan u maleynayaa inaad la socotaan ood ogtihiin xisbiga wadajir oo ka tirsan dadka maanta meeshaan ku shiraayo in baroordiiq caadiya oo ay ku qabsanayeen loo diiday ciidamo la hordhigay oo ka horna waa ogeedeen sida loo weeraray xaruntoodii wixii ka dhacay waxyaabahaas iyo waxyaaba isoo taraya oo dhan ayaa u keenay in waxyaabo fara badan looga hadli waayo ama fursado fiican laysku heli waayo iyo jidgooyooyinka joogtada oo maanta lagu sugiyo inaad ogtaan u maleynaa oo baabuur maanta socon karo iyo qof socon kara uu yaraado magaalada muqdisho haddana baaqeena waxaa ku jirtay in shirka soo socdo lagu qaban doono waddanka gudihiisa meeshii ay noqotaba muqdisho weliba inay noqotaan rabnaa oo lagu qabto oo looga hadlo laakiin maadaama fursaddan hadda intaan axsaab kala badanaa jirto nagu aragti ah oo naga ra'yi duwaneen oo fikirkaan qabna nala qabto oo maantana aan nala joogin intaa waa intii ishashay sidaasay maxaa diidan labada sano inaad sugataan dowladnimada dowladda waqtigeeda inay siisaan yaa kaloo su-aal qabo su-aasha waa ka jawaab saxaafadeedka waxaa ku jira in bisha juun shir aad ku qabanaysaan dalka gudihiisa bisha juun waxaad ku baaqdeen inaad shir ku qabanaysaa aad dowladda ugu baaqdeen in shirka xiga uu ka dhaco dalka gudihiisa dowladda arrinta hadday ka dhaga adagto ma dagaalaysaan samaynaysaa waxaad ku baaqdeen in waa cabdinaasir oo ka tirsan b b c da waxaad ku baaqdeen in xukuumad cusub oo isbeddel ku samaysa waxyaabaha hadda aad ka cabateen oo dhan ay imaato meesha ma waxaad ku baaqaysaan in xukuumadda hadda joogta la bedelo iyada oo dowladdan waxyaabaha lagu ammaano ay ka mid tahay xasilooni siyaasadeed oo markii hore kolba ra-iisul wasaare la bedeli jiray qodobka labaad ee aan idin weydiinayana waxay tahay haddii shirkan hadda aada meeshan ugu qabateen uu yahay cadaadis idinkaga imaaday dowladda oo aad ku qaban weyseen gudaha muqdisho shirka kale ee aad ku baaqaysaan bisha juun siduu idinku suuragalayo وايه بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد معلم فضل اللي معنا شركة بشي جون هدي لديدو محاسبينيسين ما دقالميسين waxay la tahay haddaan dagaalamayno haddaba maanan nimaaneen halkaas waxaan door bidaynaa shirkaasi inuu ka dhaco magaalada muqdisho hadduu ka dhici waayana waxaan ku talagelaynaa meel kaloo dalka ka tirsan waana la ogyahay tabarta dowladdu ay leedahay iyo xayndaabku inta ay ka taliso meel kale oo dalka ka tirsan ayaa lagu qaban doonaa shirkaas Marka maamul goboleedyada ay suurtagali weydo maamul goboleedyada maamul goboleed annaga ka nimid be dadkaan oo dhan maamul goboleedya ka yimaadeen meel kale cirkaa laga yimid waa deegaanadeennii meesha rabnaan ku qabsan karnaayo kale hadday muqdisho dhici weydo arrinta kale oo xukuumadda xukuumad cusub waa proposal waa soo jeedin loo arkay xal in xukuumadda hadda shaqaynaysaa ay ku fashilantay mandate-kii dadku loo xil saaray oo ay ahayd inay dalka gaarsiiso wixii laga hadlayo dastuurka oo dhammaystiran oo afti loo qaaday dalka amnigiisa oo dalka oo dhan oo la xasiliyo doorashooyin qof iyo coda oo la gaarsiiyo dalka way ku fashilantay marka mandate-keedii way ku fashilantay waxaa la soo jeediyey qofka fashilma ama kooxda fashilanta in lagu bedelo maana dhihin annagu hadla ku bedelo laakiin in lagu bedelo dad kale oo mandate-kaas waqtiga yaroo gaaban ka shaqayn kara gaarsiina kara dalka waxyaalahaas la tabaayo o dhan oo xukuumaddii iyo dowladdii la rabay dee inay ka shaqayso waxay ku fashilantay inta yartahay gobolka banaadir oo dee laga shaqaynayay ayaga ku fashilantay inay amni sugto inay dhaqaalihii dalka in iskuulladii iyo isku socodkii isbitaalladii waxaa la maraya in la yidhaahdo qofka dhaawaca lama qaadi karo oo aamin ambulance oo iska voluntary ah oo qaadi jirta dhaawaci in la yidhaahdo lama qaaday halkaasi horta baashii ay ka rogatay marka xukuumadda hadda jirta ahi way ku fashilantay mandate-kaas ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo waxaana dadka lagu xushay waxaa la yidhi xasilooni dalka unba ku jiro laakiin afar qof oo heshiisa waxba tari mayso dalka macno uguma fadhido madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu way isa salaamaan way isku qoslaan wasiiradu ra-iisul wasaaraha ay u nacamleeyaan wax ay dalka macno u leedahay iyo faa'iido u leedahay ma jirto waxa dalka faa'iido u leh waxaa weeye servicekii dowladda looga baahnaa ma la qabtaa amnigii la rabay dalka waxyaalihii ajendihii siyaasiga ahaa ee waaweynaa oo dastuurkii iyo electionkii ma laga shaqaynayaayo ma lagu aamini karaa dadka hadda jira marka taasaa keentay proposalkaas in la soo jeediyo waxaana loo soo jeedinayo waxaa weeye madaxweynaha wey hadda waxay la tahay xukuumadda asaga unbaa bedeli kara madaxweynaha proposalkaas loo soo jeediyo talo waa shalay waa kii yidhi talaha la siiyo talo waa in lay siiyaa shalay uu ku dhawaaqay mar walba waa la dhaliilaha yidhi talaha lay siiyo taladii uu ficneed maanta waa u malaynaysaa inay halkaa ka soo baxdo dhaliil tiro badan xitaa aan loo jeedin laakiin talooyin wax ku oola oo dad odayaal oo professorra oo wasiirre iyo xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay ee hadda xisbiga hogaaminaya dalka u naxaya inay talooyinkaas hadda madaxweynaha siinayaan hadduu madaxweynuhu marka talo u bukay taladii waa tanaa maanta waa loo hayaa waxaan rajaynaynaa inuu u dhagan uglaan doono haddii la yidhahdo waa maasantiin waxay haraya qolada maaragtay Media Soomaaliya soo bandhigay
شكرا.